السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيلكم مكاني كرا عافماد darro marka aad dhageysato kadib waxaad ku baran doontaa mawduucan. Waa maxay cayilku? Sidee ayuu ku yimaadaa cayilku? Cayilku caafimaadka ma saameyn karaa? Caadi ahaan meeqa kiilo ayaa laga rabaa inuu ahaado qofka miisaankiisu? Goorma ayaa qofka lagu odhan karaa waad cayilan tahay? Ma loo dhintaa cayilka? Waa maxay cayilku caadi ahaanta? Cayilku waa xaalad caafimaad darro taas oo ka timaada baruurta ama cadiinta oo jidhkeena ku badata. Waxa ayna dhibaato gaarsiisaa caafimaadka qofka. Baruurta ama cadiinta marka ay jidhkeena ku badato, waxaa qasab ah inay helaan meel ay isku fidiyaan maadaama ay buuxsantay meelihii loogu talagalay. Taasina waxa ay keentaa in jidhka qofka cayilani uu noqdo mid aan simnayn oo kuuskuus badan yeesha. Waa sida iyada oo lagu dhiibay bac jiidmaysa oo deeqda 2 kiilo oo hilib ah, adiguna aad ku riday 10 kiilo oo hilib ah. In jidhkeena ay cadiinta ama xeerta ay ku badato waxaa ka qayb qaadata maqaarka aadamaha, sababta oo ah waxa uu fursad u siiyaa xeerta inay ku badan karto ama ku baahi karto jidhka. Sababta oo ah maqaarku marka ay xeerta ku badato wuu sii fidaa ee ma celsho. Meelaha ugu badan ee xeerta lagu xereeyo markii ay xad dhaaf noqoto waa xubnaha ugu muhiimsan jidhka sida beerka, wadnaha, caloosha iyo murqaha dushooda. Sidee ayuu ku yimaadaa cayilku? Qodobka ugu weyn ee keeni kara cayilka waa inaysan sinnayn cunistaada iyo dhaqdhaqaaqaagu. Waa cunis badan oo aan lagu shaqaynin. Qofku inuu wax badan cuno haddana uusan waxba qabanin ee uu meel uun iska fadhiyo ama dhaqdhaqaaq yar oo aan micno lahayn sameeyo. Mar waliba oo ay nasiinadaadu ka badato cunistaada, halis ayaad ugu jirtaa cayilka. Qodobka labaad waa dhaxalka. Cayilka waxa uu ka mid yahay in la kala dhaxlo ama aad hiddo u yeelataba. Haddii aad aragto qoys wada cayilan dhammaantood ama intooda badan ay cayilan yihiin, ha la yaabin, sababta oo ah waxa ay u badan tahay inay dhaxal tahay oo ay kana hidda raaceen dadkii dhalay. Haddii cuntooyinkaaga ku badan tahay tamartu, waxaa kugu sii siyaadi kara cayilka. Qodobka kalena waxa weeyaan daawooyinka qaar waxa ay ka qayb qaataan inuu cayilku siyaado, sida corticosteroids, daawooyinka dejiyaasha ah, daawooyinka macaanka loo qaato sida insulin, ama kuwa ka kooban sulfonylureas kuwa uurka looga hortago, iyo daawooyinka qalalka loo qaato. Qodobka ugu dambeeyana waxa weeyaan waxaa jiri kara cudurro kugu keeni kara cayilka sida hypothyroidism, insulin resistance, polycystic ovary syndrome, and Cushing syndrome. Cayilku sidee ayaa uu caafimaadka u saameeyaa? Xeerta oo ku badata jidhkaaga waxa ay keeni kartaa cudurro aad u badan, waxaana ka mid ah cudurrada ku dhaca wadnaha, macaanka noociisa 2, naqaska oo ka xidhma xilliyada hurdada, cudurka neefta ama xiiqda, nooc ka mid ah kansarka gaar ahaan nooca lafaha ku dhaca. Caadi ahaan meeqa kiilo ah ayaa laga rabaa inuu ahaado qofka miisaankiisu? Goorma ayaa la odhan karaa qofka waad buuran tahay ama waad cayilan tahay? Miisaanka qofku waxa uu ku xidhan yahay da'diisa. Mar waliba oo ay da'daadu isbedesho, waxaa suurtagal ah inuu miisaankaagu siyaado. Sidaas oo ay tahayna waxaa jira xeer ama qaacido u yaal adduunka oo haddii uu qofku intaas dhaafo la aqoonsan karo inuu cayilan yahay, ama nafaqo darro ay hayso, ama uu caadi yahay. Waana qaacido aad u fudud oo aan guryaheena ku samayn karno dhammaanteen. Inta aanan qaacidada u gudagelin, bal aan isla fahanno waddada qaacidadaas loo maro. Waxa loo baahan yahay in la xisaabiyo cayilkaaga, xeertaada. Sidaas awgeed waa inayn marka hore haysanno ama aan ognahay waxa aan raadinayno. Waa inta uu jidhkaadu cayilka la ogol yahay, waxaana loo yaqaan
BMI Body Mass Index ayaana loo soo gaabiyey. BMI ama Body Mass Index waxaa lagu helaa culayskaaga miisaan kiilogaraam ahaan oo loo qeybiyo dhererkaaga mitir ahaan oo 2 jeer la isku dhuftay. Goorma ayaan ku dhihi karnaa waad cayilan tahay ama waad buuran tahay, ama caadi ayaad tahay, ama nafaqo ayaad u baahan tahay? Marka aad BMI-gaada aad xisaabiso, jawaabta kuu soo baxda waxa aad ka fiirinaysaa halkan. Waxa aad tahay qof ka yar miisaankii looga baahnaa. BMI is less than 18.5. Waxa aad tahay in laga rabay BMI is 18.5 to 24.9. Waxa aad tahay cayil bilow ah. BMI is 25 to 29.9. Waxa aad tahay cayil aan loo baahnayn. BMI is more than 30. Haddii aan tusaale u soo qaadano, Xaawo culayskeedu wuxuu yahay 53 kiilogaraam, dhererkeeduna wuxuu yahay 56 sentimitir. Haddaba ma qof cayilan baa, mise qof ka yar miisaankeeda intii laga rabay baa, mise cayil bilow ah weeyaan? Bal aan xisaabino BMI-ga gabadhaas si aan jawaab sax ah u helno. BMI equal kilogram per meter square. BMI culayskeeda 53 kiilogaraam, dhererkeeduna 1 mitir iyo 56 sentimitir. Haddaba halkaas waxaa kaaga soo baxaya jawaab sax ah oo ah in culayska jidhkeedu uu yahay 22. Lambarkaasna waxaa ku dhex jira qaacido aan soo sheegnay, waana intii laga rabay. Su-aasha ugu dambaysa waxa ayna odhanaysaa, ma loo dhintaa cayilka? Haa, waa loo dhintaa. Sababta oo ah cayilku waxa uu sababaa cudurro kugu keeni kara dhimasho, sida wadne xanuun joogto ah, cholesterol ama dux, macaanka noociisa 2, iyo noocyo ka mid ah kansarka. Sidee ayaan ku yarayn karaa cayilka? Waa mowduuc aad u weyn, dib ayaanan uga hadli doonaa insha Allah. Waxaana rajaynayaa mowduucan maanta mowduuca ku xiga inuu noqon doono sidee ayaan u yarayn karaa cayilkayga. Waxaana kuu soo gudbin doonaa talooyin la isku soo ururiyey oo aad iyo aad u xoog badan, laakiin adigana waxaa lagaa rabaa inaad go'aan qaadato si aad cayilkaaga u yarayso. Haddaba haddii aad doonayso inaad macluumaad badan naga faa'iido, fadlan channelka subscribe saar, gambaleelkana furo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Fii amaanillah.